Wadsalaamaantiin asxaabta ku soo dhawaada barnaamijkeena Ontaarka oo ku falanqeyno kulamada ugu waaweyn ee la ciyaaray toddobaadka. Waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa kulamadii maanta la ciyaaray horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo maanta waxaa si rasmi ah u soo laabtay horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Waxaana ciyaartay kooxda Tottenham kulankii furitaanka oo aan muuqaalka hore kaga hadalnay. Waxaana kulankaasi ku soo dhamaaday 2-2. Haddaba muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa kooxda Arsenal oo sii dheeraysatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League kadib markii ay 3-2 kaga badisay kooxda West Ham. sidoo kale kooxda Liverpool ayaa iyaguna 3-2 kaga badiyay kooxda Aston Villa. waxaa jira kooxda Newcastle United oo iyaduna kamid ah mucjisooyinka xilli ciyaareedkan. haddii aad ka heshid muuqaalka fadlan like sar subscribe na dhex channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe. ugu horeyntii haddii aynu eegno kooxda Arsenal ayaa sii dheeraysatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League kadib markii ay 3-2 kaga badisay kooxda West Ham. haddaba kooxda Arsenal oo sidoo kale guul ku soo xidhay koobka horyaalka Ingiriiska ee Premier League ka hor intaan loo bixin koobka adduunka ayaa sidoo kale guul ku soo laabatay. sidoo kale kooxda Arsenal ayaa 10 kulan ee ugu dambeeyay ay kooxdu ciyaarto marka loo yaqaan ama maalmaha loo yaqaan Boxing Day-ga ayaan laga badin kooxda Arsenal. haddaba kooxda Arsenal iyadoo ay jireen ciyaartoy ka maqan sida ciyaartoyga Gabriel Jesus oo kamid ah ciyaartoyda ugu muhiimsaneed kooxda Arsenal ayaa haddana waxay awooday kooxda Arsenal inay 3 gool dhaliso oo kooxda West Ham 3-2 kaga badiso inkastoo lagala hormaray goolka oo ciyaartoyga Saciid Birraxma uu goolka rigoore ka dhaliyay kooxda Arsenal oo 1-2 ahayd. sidoo kalena qaybta hore ee kulanka uu 1-2 ku soo dhamaaday. haddaba kooxda West Ham ayaa qaybta hore ee kulanka waxay soo bandhigeen kulan aad u fiican kaasoo ay ogolaan waayeen kooxda Arsenal inay fursado abuuraan. sidoo kalena kooxda West Ham waxay doonaysay ama waxa uu suura gashay qaybta hore ee kulanka fikradii uu ku ciyaaray tababaryaha David Moyes kaasoo ahayd inay raadiyaan khaladaadka daafacyada kooxda Arsenal. haddaba ciyaartoyga ama daafacyahanka William Saliba ee u ciyaara kooxda Arsenal ayaa u fududeeyay kooxda West Ham arrinka ay doonaysay kaasoo ahaa inay khalad galaan daafacyada kooxda Arsenal oo ciyaartoygan waxa uu galay rigoore intaa kadib ciyaartoyga Saciid Birraxma ayaa u turjumay rigoore. haddaba kadib markii ay goolka koowaad dhaliyeen kooxda West Ham waxay gadaal u baxeen oo way daafacanayeen arrinkaasoo uu diiday kooxda Arsenal inay dhaliso ama wax gool ah la timaado qaybta hore kulanka. sidoo kale ciyaartoyga Nketiah ayaa isaguna maxaa ciyaartoy aad u dhaqdhaqaaqay qaybta hore inkastoo ciyaartoygan uu ka ciyaaray lambar 9 ama booska ciyaartoyga Gabriel Jesus. haddana ciyaartoygan qaybta hore kulanka waxa uu u baxay garbaha si uu kubadda u doonto ama uu kubadda u soo qaato oo mu ahayn ciyaartoy lambar 9 ah oo ku jiray xerada ganaaxa kooxda West Ham. balse qaybta dambe waxba iska bedelay ciyaartoyga Nketiah oo waxa uu ahaa ciyaartoy lambar 9 sax oo ku jira ama lagu soo agaagayay xerada ganaaxa kooxda West Ham. haddaba qaybtii dambe ee kulanka tababare Mikel Arteta waxyaabo badan ayuu ka bedelay kooxda oo waxa isbedelay qaab ciyaareedkii iyo sidoo kale kooxda weerarkii ay sameysay oo kooxda Arsenal qaybtii dambe ee kulanka waxay sameysay inay weeraro badan qaado oo isla daqiiqadii 30 markii laga soo laabtay qaybtii dambe ee kulanka 7 daqiiqo ka bacdi ciyaartoyga Bukayo Saka ayaa isagu dhaliyay goolka baraajaha kooxda Arsenal. haddaba waxaa jirta qaybta hore ee kulankan ciyaartoyga Bukayo Saka gool uu dhaliyay kooxda Arsenal balse goolkaas la diiday maadaama uu ahaa gool offside ah. haddaba 5 daqiiqo ka bacdi kooxda Arsenal kadib markii ay la timi goolka baraajaha waxa laga rabay ama waxay soo bandhigtay kooxda Arsenal falcelintii ahayd maadaama ay kooxda awooday inay goolka baraajaha keento sidoo kalena inay kooxda Arsenal awood u leedahay inay dhaliso goolka guusha ama goolka labaad oo ay soo niyad jabiso ama ay soo afjarto kooxda West Ham. arrinkaas oo u suura galay kooxda Arsenal oo kooxda Arsenal goolka koowaad markay la timi 5 daqiiqo ka bacdi sidoo kale ciyaartoyga Gabriel Martinelli oo kamid ah ciyaartoydii ugu fiicnaa kooxda Arsenal kulanka ayaa la yimaaday goolka labaad. ciyaartoyga Gabriel Martinelli waxa uu dhaliyay goolka labaad kooxda Arsenal waxaana uu dhiibay hoggaanka kooxda Arsenal kulanka. intaa kadib isla 20 daqiiqo gudaheed daqiiqada markay 69 kooxda Arsenal waxay sii waday inay soo afjarto matchka oo ay dhaliso goolka saddexaad oo kulanku markuu noqdo 3-1 iyo markuu yahay 2-1 waa kala duwan tahay oo kooxda West Ham haddii kulanku sii ahaana 2-1 laga yaabaa inay dhalin lahaayeen goolka baraajaha ama isku dayin lahaayeen inay la yimaadaan goolka baraajaha arrinkaas oo khalkhal gelin lahaa 3 dhibcood ay ka soo qaadatay kooxda Arsenal garoonkeeda Emirates Stadium. sidoo kale kooxda 69 ciyaartoyga iyo sidoo kale weeraryahanka Nketiah oo ay wax badan iska bedeleen maadaama ciyaartoygan qaybta hore kulanka waxa ciyaartoy in badan ka baxay xerada ganaaxa kooxda West Ham ayaa qaybta dambe ee kulanka ciyaartoygan waxa uu ku sugnaa xerada ganaaxa kooxda West Ham sidoo kale waxa uu kaag dhawaanayay ciyaartoyda garbaha sida ciyaartoyga Gabriel Martinelli iyo sidoo kale Bukayo Saka. haddaba ciyaartoyga Nketiah ayaa gool aad u qurux badan daqiiqadii 69 u dhaliyay kooxda Arsenal alankaas oo ka dhigay inay kooxda Arsenal hoggaanka ku hayso kulanka 3-1. haddaba kooxda Arsenal ayaa waxay hoggaanka Ingiriiska ee Premier League ay ku haysaa 40 dhibcood iyagoo ciyaaray 15 kulan 13 kulan oo kamid ah waa ay badiyeen hal kulan waa laga badiyay oo waxa ka badisay kooxda Manchester United
halkuna bareeja ayay la galeen kooxda Southampton. sidoo kale kooxda Arsenal ayaan lagaga badin garoonkeeda Emirates Stadium marka ay la ciyaarayso kooxda West Ham ee ka dhisan magaalada London oo markii ugu dambeysay ay kooxda West Ham ay kaga badiso kooxda Arsenal garoonkeeda waxay ahayd sanadii 2015 xilligaas oo ay kooxda West Ham kaga badisay kooxda Arsenal garoonka Emirates Stadium 2-0. haddaba inkastoo ay kooxda Arsenal ka maqnaayeen ama uu ka maqnaa ciyaartoyga ugu muhiimsanaa marka laga yimaado ciyaartoyga Martin Odegaard ciyaartoyga Gabriel Jesus haddana kooxdu waxay awooday inay ka gudubto kooxda West Ham oo kulanka iyadoo natiijada lagala hormaray ay kooxdu soo laabato sidoo kalena ay 3 gool dhaliso. sidoo kale ciyaartoyga Martin Odegaard ahna kabtanka kooxda Arsenal ayaa isagu sii waday bandhigiisa kadib markii uu ahaa ciyaartoyga caawiyay 2 gool oo kamid ah 3 gool ay dhalisay kooxda Arsenal. sidoo kale ciyaartoyga Xhaka ayaa isaguna sii wada ciyaareedkii aadka u fiicnaa uu soo bandhigay kadib markii isaguna caawiyay gool kamid ah 3 gool ay dhalisay kooxda Arsenal. haddaba kooxda Arsenal ayaa sii dheerisay hogaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo Arsenal hadda waxay ku haysaa 7 dhibcood inkastoo la sugayo kulanka ay kooxda Manchester City la ciyaari doonto kooxda Leeds United. dhinaca kale haddii eegno kulamadii kale la ciyaaray waxaa kamid ah kooxda Aston Villa iyo sidoo kale kooxda Liverpool ayaa wada ciyaaray oo kooxda Liverpool ayaa 3-1 ku soo badisay. haddaba kooxda Liverpool ayaa guulyaguna ku soo laabtay horyaalka Ingiriiska ee Premier League daqiiqadii ugu horeeyay ciyaartoyga Mohamed Salah ayaa daqiiqadii 5aad goolka koobaad u dhaliyay kooxda Liverpool. intaa kadib kooxda Liverpool waxay bilowday inay maamusho kulanka oo kooxda Liverpool daqiiqadii 37aad waxay awooday koorna inuu ka dhaliyo ciyaartoyga Virgil van Dijk goolka labaad ee kulanka. haddaba qaybta hore ee kulanka intii ka harsaneyd ama qaybta hore ee kulanka si guud waxaa ciyaarta maamulisay ama kulanka maamulayay kooxda Liverpool arrinkaas oo u diiday kooxda Aston Villa inay weerar la yimaadaan ama ay qabsadaan kubadda oo ay maamulaan ciyaarta. haddaba markii la soo laabtay qaybtii labaad ee kulanka ciyaartoyga Oli Watkinson ayaa waxa uu dhaliyay goolka koobaad kooxda Everton daqiiqadii 59aad. haddaba kadib markii ay kooxda Aston Villa goolka koobaad la yimaadeen oo ay natiijada kulanku noqotay 2-1 waxay isku dayeen inay goolka labaad la yimaadaan iyagoo sidoo kale filcelin ka sameynaya goolkii koobaad ay dhaliyeen waxayna awoodi gaadheen inay dhaliyaan goolka labaad oo 10 daqiiqo kadib markii ay dhaliyeen goolka 10 daqiiqo ku xigay waxay ku jireen weerar halka ay kooxda Liverpool daafac ku jirtay oo ay ku ciyaaraysa counter attack arrinkaas oo keenay dhamaadkii ama 10 daqiiqo ugu dambeeyay inuu ciyaartoyga Stephen goolka saddexaad u dhaliyo kooxda Liverpool oo kulanku ku soo dhamaaday 3-1. haddaba ciyaartoyga Stephen ayaa waxa uu noqday ciyaartoygii labaad ee isagoo aan 18 sano gaadhin horyaalka Ingiriiska ee Premier League goolka dhaliya wuxuuna ahaa ciyaartoygii kaliya hore u sameeyay arrinkaas ciyaartoygii hore khadka dhexe uga ciyaari jiray kooxaha Arsenal iyo Chelsea ee Cesc Fabregas. sidoo kale ciyaartoyga Mohamed Salah kadib markii uu dhaliyay goolka koobaad ee kulanka ciyaartoygani waxa uu noqday caawiyayna goolka labaad ee kulanka uu dhaliyay ciyaartoyga Virgil van Dijk. Mohamed Salah waxa uu noqday ciyaartoygii labaad ee taariikhda kooxda Liverpool horyaalka Ingiriiska ee Premier League marka laga yimaado ciyaartoyga iyo sidoo kale halyeeyga hore ee kooxda Liverpool ee Steven Gerrard horyaalka Ingiriiska ee Premier League kooxda Liverpool 50 gool u dhaliya sidoo kalena 50 gool u caawiya. haddaba kooxda Liverpool ayaa soo badisay kulanka oo 3-1 ay ku soo dhamaatay waxaana hadda ku jirta kooxda Liverpool kaalinta 6aad ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League inkastoo kooxda Manchester United oo ka sareysa haddana ay hal kulan u dhiman tahay. sidoo kale kooxaha Tottenham iyo Newcastle United ayaguna min 16 ciyaaray. haddaba mucjisooyinkii xilli ciyaareedkana waxaa ka mid ah kooxda Newcastle United oo kooxda Newcastle United waxay ciyaartay kulankoodii maanta soo laabashada horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxayna 3 kaga badiyeen kooxda Leicester City. haddaba ka hor inta aan ciyaarin kooxda Manchester City 2 kulan ayaa u dhiman kooxda Manchester City. kooxda Manchester City hadda waxay ciyaartay 14 kulan halka ay kooxda Newcastle United oo ciyaartay 16 kulan ay ku jirto kaalinta labaad ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxayna ku xigeen kooxda Arsenal oo 40 dhibcood leh. kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda Newcastle United oo 33 dhibcood leh. haddaba kooxda Newcastle United ayaa waxay 3 kaga badiyeen kooxda Leicester City. ciyaartoyga Wood ayaa hore u dhaliyay kooxda Newcastle United ciyaartoyga Almiron iyo sidoo kale Joelinton ayaguna 2 gool kala dhaliyay. haddaba ciyaartoyga Miguel Almiron ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ilaa hadda xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ciyaartoygana waxa uu 9 gool dhaliyay 8 kulan ee ugu dambeeyay uu ciyaaro horyaalka Ingiriiska ee Premier League. sidoo kale ciyaartoygan haddii aan eegno afartii xilli ciyaareed ugu dambeeyay 8 gool oo kaliya ayuu dhaliyay arrinkaas oo ka dhigan ciyaartoygan 8 kulan ee ugu dambeeyay goolasha uu dhaliyay waxay ka badan yihiin afartii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay. ugu dambeyntiina kulamadii kale ee ciyaaray waxaa ka mid ah waxaa iyaguna isku hor yimaaday kooxaha Everton iyo sidoo kale kooxda Wolverhampton.
haddaba kooxda Wolverhampton ayaa 2-1 kaga soo badisay kooxda Everton inkastoo ay kooxda Everton gool la hormareen oo ciyaartoyga Mina u dhaliyay balse ciyaartoyda Podence iyo sidoo kale ciyaartoyga Ryan Aitnouri oo daqiiqadii ugu dambeeyay goolka labaad dhaliyay kooxda Wolverhampton ayaa u dhiibay 3 dhibcood kooxda Wolverhampton. haddaba tababaraha cusub ee kooxda Wolverhampton ee Lopetegui ayaa waxa uu sameeyay rikoodho oo waxa uu noqday markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan kooxda Wolverhampton horyaalka Ingiriiska ee Premier League ay guul ku soo gaadhay kooxda banaanka garoonkeeda oo maadaama ay ku ciyaarayeen garoonka Goodison Park ee kooxda Everton. sidoo kale waxa uu noqday Lopetegui tababarihii ugu horeeyay ee tababara kooxda Wolverhampton ee guuleysta kulankiisa ugu horeeyay horyaalka Ingiriiska ee Premier League markii ugu dambeysay ee tababara loo dhiibay xilka kooxda Wolverhampton kaas oo kulankiisa ugu horeeya badiya waxay ahayd sanadu markay ahayd 1978. sidoo kale Lopetegui waxa uu soo hooyay kooxda Wolverhampton guushooda ugu horeeyay maalmaha Boxing Day tan iyo sanadii 1978. haddaba waxaa sidoo kale soo dhamaaday kulamadii la ciyaaray maalinka ugu horeeyay horyaalka Ingiriiska ee Premier League. kooxaha Tottenham Bridge ayay gashay Wolverhampton 2-1 ayay ku soo badisay. Newcastle United iyaguna waxay soo galeen kaalinta labaad ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League. kooxaha Liverpool iyo sidoo kale kooxda Arsenal oo hoggaanka sii dheersatay iyaguna waxay ku sii badiyeen 3-1.